waa YouTube channel oo inta badan dadka idil ay ka baqaan raadintiisa iyo sidoo kale xog ururintiisa. They have predicted all of the celebrities that will die in 2020. They even predicted the dates of these people and they got them all right. They got the date right. Oh my. maxaa yeelay waxa uu noqday YouTube-ka ugu saameynta badan dhanka social media-ha waxaana lagu soo gudbiyaa dhimashada ama saadaalinta qofka dhimanayo iyada oo la saadaalinayo 3 sano iyo 2 sano ka hor. Vision 2020 vision. sidaas laajligeed waxa uu noqday YouTube-ka ay ka cabsadaan dhalinyar badan booqashadiisa iyo sidoo kale ka falcelintiisa reaction ahaan. It's 2020 vision. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guys waan salaamayaa meel bad caalamka ka joogtaan si walba soo gaaraya codkii muuqaalkayga I hope 90% inaad faraxsantiin alxamdulillah saan faraxsan oo kale alxamdulillah adigna waxaan ku rajeynayaa inaad caafimaad qabto alxamdulillah dhankayga waa barwaaqo ma sha Allah dadina waxaan ku rajeynayaa sidoo kale aad u faraxsan tahay alxamdulillah rayn iyo barwaaqaad ku jirto waxaan maadi amaan iskale Allah subhanahu wa ta'ala والله سو كان dhamaanteen ba halkan wallahi inaga ogolaaday in mar kale aanu soo gudbino muuqaal anaga oo caafimaad qabno anaga oo faraxsan misana adigana daawanaya waxaan rajeynayaa in muuqaalkan uu qancin doono muuqaalkan waxaan rajeynayaa in title-kiisa aad ku soo qanacday even haddii aad ku soo qancin waxaan rajeynayaa in muuqaalku ku cajibin doono qaybtiisa dhexe waxaan ka codsanayaa intaan muuqaalku guda galin inaad calaamad dhaqameedka aad ii saarto subscribe and then aad like ku xujiso videogan aad sii share gareyso maadaama share gareyntu waxay inaga saacidaysaa in dad badan oo adiga kula mid uu gaaro videogan waxaan rajeynayaa intaa idil inaad qabatay oo aad diyaar u tahay inaad muuqaalka daawato yes okay waxaan rajeynayaa muuqaalkan in guda galo muuqaalkana sida title ku soo aragtay waxaan uga hadli rabnaa la yaabka dunida waxaanu ciwaan ahaan uga soo qaadanay intaanu research ama baxsiga aan sameeynay YouTube kamida YouTube-yada oo ay aad uga baqaan dhalinta maxaa yeelay waxa uu noqday YouTube-ka ugu halista badan ee la soo geliyo fiidiyoyo YouTube-kan aad u jeedaan lagu magacaabo 2020 Vision. Did 2020 Vision upload a metric ton of videos with random celebrities and dates? waxa uu yahay waa YouTube fiidiyoyadiisa ay u badan yihiin ku dhawaad 6 ilbarqsi kuwa socdo thumbnail-kooda amaba fiidiyo cover-koodana uu wada same yahay oo asleeda alla leh fiidiyoyada dhammaan waxa edit gareeyay hal qof saasay tahay waxa uu noqday YouTube-ka ugu halista badan hadaba waxaad isweydiinaysaa sidoo ku noqday YouTube-ka ugu halista badan ee YouTube-yada caalamka ka soo qaad marka ay reaction ka bixinayaan YouTube-yada professional-ka ah waxay aad uga baqaan YouTube-kan in reaction ka bixiyaan soo marka sababaha kalifay in YouTube-kan reaction laga bixin waayo lagana falcelin waayo saameyn xooggan uu ku yeesho bulshada waa maxay waxa laga yaabaa in calaamad su'aal weyn ay ka saaran tahay soo marka intaan baxsigaas ama research-kaas aan sameynayno waxaan soo ogaanay in YouTube-kaas uu yahay YouTube-ka ay ka cabsadaan YouTuberada badan Soomaaliha hana dhihin ajaanib dhamaan ayagu aad uga baqaya waliba iska daayay YouTube-yada professional-ka ah ee loo tixgeliyo calaamad dhaqameedka subscribe-ka kuwooda ugu badan 1 billion iyo 1 million above ah soo marka sababta kaliftay inay ka cabsadaan ayaan videogan aan iskula daawan doonaa YouTube-kan waxa uu caan ku yahay inuu soo galiyo muuqaalo soconaya 6 ilbaraqsi videogii ugu horeeyay ee la soo galiyay channel-kaas waxa la soo galiyay sanadku markuu ahaa dabiiqadii 2017 yacni videogaas oo ula jeedo in issue ay furantay wuxuu ula jeedo gadaal ayaan ka ogaan doonaa issue furantay iyo waxa soo wado videogaas waxa uu socday muddo 6 ilbaraqsi ah wax ka yar 6 ilbaraqsi ayuu videogaas socday waxaana ciwaankiisu ahaa issue way furantay oo sida uu jeedo halkaanba videogaas markii uu soo galiyay wax views iyo wax yacni subscribe dadku meeshan ku mashquulin second wuxuu sameeyay YouTube-ka waxa uu qaas u yahay ayuu sameeyay maxaa yeelay YouTube-ka waxa loo abuuray waa qaab shirkad ah ama maaragtay qaab ah ka baxsan dadka markii yacni ay soo gudbinayaan muuqaalo YouTube-kaas waxa la soo galiyaa muuqaalo ay isugu jiraan 6 ilbaraqsi ilaa iyo 7 ilbaraqsi kuwaas oo dhammaantoodba lagu xusayo qofka ku geeriyoon doona waqtigaas sometimes waxay sameynayaan inay dhahaan bisha Agoosto 21-deeda maalin hiblaayo waxa geeriyoon doona ninkaas inay dhacdo oo aysan yacni khilaaf usan jirin oo maalinkaas markii la gaaro uu qofkaas dhinto waxaa inta badan ka yaabiyay social media oo hadal heent badan yeeshay dhimashadii Kobe Bryant. Now, the major developments late today in the Kobe Bryant helicopter crash investigation, the preliminary report from the NTSB just in tonight, and what we've now learned. Here's Adrian Bankers.
Tonight, the new report on the crash that killed Kobe Bryant, his 13-year-old daughter Gianna, and 7 others, including their pilot, who in their final moments told air traffic control they were climbing to 4,000 feet. Kobe Bryant sidaan ognahay dhamaanteen aan ka warqabno waxa uu ku dhintay shil helicopter ah asiga iyo gabadhiisa iyo sidoo kale 7 qof oo asiga la saarnaa diyaaradaas markii uu dhintay markii janaalkiisa la soo galay ninkan aasay 2020 fashion waxa uu kaga hadlay 2017 fiideo uu soo dhigay in Kobe Bryant uu dhiman doono 26 January 2020 inuu dhiman doono bisha koobaad 2020 markay tahay maalinka 26aad inuu dhiman doono wayna dhacday waxa dhacday in uu geeriyoodo uu shil helicopter ku dhinto intaas kadib hadana waxa saameyn kale oo aad u balaaran yeeshay social media-na qabsaday dhimashadii Little Richard oo asigana saameyn balaaran ku yeeshay dhammaan inta social media isticmaasho ee ajaanibta ah wuxuu ahaa fanaan waxa uu dhintay iyo taariikhda iyo xogtiisa oo idil Wikipedia uu soo galiyay sometimes marka waxa dhacday in ninkan uu 2017 uu ka soo hadlay dhimashadii Little Richard isagoo waliba ishii furantay oo kale qaabkii uu ku caanka ahaa ee ishii inta furo qaab log ahaan u sameeyo fiidiyogana uu soo dhaxgaliyo dheedka oo kaliya sigoo soconayo waqtiyo ka yar 6 ilbiraqsi ilaa 7 ilbiraqsi ilaa 5 ilbiraqsi isagoo waliba dhahayo Little Richard inuu hoos uga soo qoro kadibna taariikhda uu dhimanayo iyo sidoo kale sanadka iyo maalinka uu dhimanayo soo marka waxyaabaha ku kulifay in social media uu caan ka yeesho tan iyo 2019 iyo 20 waxa ku kulifay waxay ahayd saadaalintaas aad u tunka weyn oo ka saadaaliyay labadii qof ee dhimatay ee aan hore ka soo sheegnay ninkii la oran jiray Kobe Bryant oo ku dhintay shil helicopter ah iyo sidoo kale Little Richard oo isagana geeriyooday isla saacadii iyo waqtigii loo balmiyay inta badan social media hadal heenta ugu badan waxa ay qabsatay in yaani channelkaas saadaalinta uu ka bixiyay aysan mid sax ahayn sometimes ay noqon karto in shirqool loo dilay qofkaas ka soo qaad hadii aanu tusaale ahaan u soo qaadano dhimashadii Kobe Bryant uu shil helicopter ku dhintay waxa la soo qaataa in taariikhdaas iyo maalinkaas markii la gaaro in sidii yaani qaab yaani kas ah in loo dilo intaasna way ka baxsaneedo waxa jirto dhimashooyin qaar uu saadaaliyay channelkaas laakiin ku dhintay qadar allo ama qofna aanan waxba dilin qof waxa jira qadar allo dhintay iyo qof waxa jiro kas ah marka waxyaabaha la yaab ku awar waxa kamid ahaa dhimashooyinka caadiga ah ee qadar allo ku dhinto channelkaas uu saadaaliyay maalinka iyo saacada iyo sanadka tahay soo marka channelkaas waxa ay yaani fariimo badan ay ka gudbiyeen social media dadkii yaani ugu tunka weynaa ama baraha bulshada dhanka YouTube-ka aad iyo aad professional ugu ahaa waxay cabasho ka gudbiyeen shirkadda YouTube-ka iyagoo waliba fariimo u diraayo dhahaya waxaan rabnaa in la ka bedelo yaani in qofkaas loo ogaado si uu yaani meesha joogo iyo qofku yaani loo tuso fariimo badan ay dhibteen codsiyo badan ay dhibteen iyo commentiyo badan iyo Gmail badan ay u direen waxa uu YouTube-ku sameeyay inuu soo ogaado qofkaasi waxa uu yahay waxa uu yaani 2020 ku soo laabtay YouTube-ka andan waxa uu muuqaalkiisii ugu dambeeyay hal bil ka hor uu soo dhigay uu ahaa ishii way xirantay yaani waxaanu ka soo aragnay 2017 fiidiyogii ugu horeeyay ee 24 ilbiriqsi ahaa inuu ugu magac daray ishii way furantay soo marka the last video wuxuu noqday ishii way xirantay oo uu la jeedo in yaani YouTube-ka uu asigana kala kulmay xadgudub ama maaragtay fariimihii ay u soo dhiibteen dadkii professionalka YouTube ka ahaa calaamad dhaqameedka subscribe-ka 1 billion iyo sidoo kale 1 million above ka haystay inay codsiyadooda loo tixgeliyo la dhahay channelkaas waxa uu qabto iyo sidoo kale xogtiisa inoo soo ogaaw soo marka ninkii waa la soo ogaaday waxa dhacday in uu wajigiisa soo bandhigo wuxuu sameeyay muuqaalkii ishii way xiranta ahaa muuqaal ka dambeeyay uu soo dhigay waxa uu noogu magac daray linkiga description-ka yaalo fiidiyooga yaalo soo daawo yaani fiidiyoo soconayo ku dhawaad 2 ilbiriqsi ama 5 ilbiriqsi aan iska dhahnay ayuu soo dhigay isagoo waliba aan wax hadal aan marinayo wuxuu ku soo xijiyay qoraal ah yaani linkiga description-ka yaalo hadii aad rabto inaad wajigayga aragto linkigaas ku dhufo si aad u daawato wajigayga iyo qofka aan ahay iyo ninka maamula channelka 2020 Vision soo marka dadkii idil waxa ay ku wada bishubteen inay soo wada booqdaan channelkaas si ay u ogaadaan maxaa yeelay dadku dhan waxay ahaayeen dad xog raadis ah oo doonaya inay ogaadaan ninkaas saadaalinta xooggan bixiyay waxaad la yaaban tahay anagu waxaanu nahay dad islaam ah waxaanu haysanaa diinta islaamka
soo marka nagama dhaadhacayso in qof uu maanta saadaaliyo beri wax dhacayo ama saadan wax dhacayo in qof aan ka ogolaano inuu naga saadaaliyo beri iyo waqtiyada ka dambeeya iyo waqtiga soo socdaba wax dhacayo maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa waxaasoo idil kafaalo qaadi karo awoodo inuu sameeyo oo waa ilaahay waa cilmu qaa'ib soo marka gaalada iyaga oo aan aaminsanan ilaahay haddana markay ninkaas warkooda maqlaan saadaalintiisii xoogan iyo sidoo kale sida isku ixtiraamaysa ruuliskiisii waxa ay sameeyeen inay janaalkaasoo idil ay ka leexdaan wax reaction ay ka soo bixin aad uga cabsadaan waxa uuna noqday janaal hadal heen badan oo social media aad iyo aad caan uga noqday isaga oo magaciisa lagu hanta qaadaya ama magaciisa qofka uu maanta dhan dhahayo. Now, who would do such a thing? Who's that Pokemon? It's 2020 vision. 2020 vision. 2020 vision. Vision 2020. Vision. 2020 vision. Vision 2020. 2020 vision. 2020 vision. soo marka waxa uu noqday channelkaas channel laga cabsado isaga oo macnaha fiidiyogii uu ku yiri linkiga description-ka yaala soo daawada markii description-ka la tagana isagoo xogtii dhan ku soo bandhigay xogtii ugu dambeysana waxa uu ku sheegay in yacni resultigii ahaa ay wada sugayeen linkiga description-ka yaala fiidiyogii la soo daawada ahayd sidoo ninkan ku soo gudbin jiray muuqaalada iyo sidoo kale sidii dadku uga falcelin jireen waxauna fiidiyogiisii ku yiri anigu maahi يعني سحرولة يسدو كله وحيابها يقول تهميسان وحكليه أنا سميت جرا وحياة وحيابها يدك السمايان سو مركا وحيابها وإن لو ذا واحد كمدها وأنا لا يابني دتك عالم كان لا يابين يجوا وليبا أستاذالين وياهاي يعني قف فكرة أدوان أكسان هستو وحواها إنه سمايو فيديو إنه لو ذا كنا يتطبيق تمانك سوق ليه يوتيوب ده حيسنا كنا حجر جرا مركون نكت جيريودو يعني وحو شيء إنه ده لو ذا كنا يتطبيق تمانك مركان فيديو سوق ليه لو ذا كنا لبعتان كدتك دمنا عيو qof uu dhiman doona soo hadda 2020 sida aan u dhinteen oo kale qof uu dhiman doona saadaashiisa halkaas oo ka qaadatay fast ID oo qaato waa ID-gii kood wuxuu ahaa in 2020 dad ay dhiman doonaan soo marka asigoo halkaas ka ambaqaadaya darajarta stepkiisa koowaad wato hadana wuxuu sameeyay inuu dhaho fiidiyowga markaan soo galiyo waxaan saari jiray private ama only me uu ka dhigi jiray fiidiyowga inuu si kaligiis arkay 2017 koona soo dhigay markuu ninkaas dhintana wuxuu ka qaadi jiray only me wuxuu ka dhigi jiray public oo dadka u soo bandhigi jiray si yaani dadka ay u arkaan meeshii ahayd 2017 in fiidiyowga la soo dhigay 2020 uu ninkaas dhintana uu yaalo ilaa hadda oo yaani dadka ay dhahayaan unbelievable ma aamini karno waxaan wuxuu sameeynaa kaliya YouTube fiidiyowga lagu dhex jarjaraa oo waxa jirto program lagu dhex edit gareeyay YouTube-ka qaabkaas uu isticmaali jiray fiidiyowga dheer wuxuu ka dhigi jiray 6 second wuxuu ku soo reebi jiray kaliya taariikhda oo qofka dhimanayo iyo maalinka iyo 2000 iyo sanadkeeda uu raacina kadibna wuxuu sameeynaa inuu ku soo upload gareeyo andan uu ka qaado private-ku public ka dhigo si dadka ay macnaha ay u eegaan ay u dhaxaan anu eegno sanadku soo dhigay iyo sidoo kale taariikhda uu soo dhigay waxay eegayaan taariikhda uu soo dhigay inay tahay 2017 iyo taariikhaas inay tahay soo marka taariikhda uu ilaa hadda yaalana waa 2020 waxay sameynayaan inay ka cabsadaan ay feejignaan muujiyaan maxaa yeelay ka muur qabaan in fiidiyowga private la saaray oo la soo daayay oo kaliya waxa ka warqabo qofka janaalka soo galiyo oo kaliya iyo qofka la xukumo soo marka janaalkaana waliba siyaabo badan oo hakina loo soo adeegsado hadana waa la jabsan waayo waa la xalin waayo arrimihiisii maxaa yeelay waxa uu ahaa qof yacni ku fiican dadka IT-ga aadna ugu wanaagsanaa wuxuu sameeyay inuu istaabyo badan uu kaga hortago uu soo diyaarsado soo marka wuxuu sameeyay inuu yacni arrimihii laga sugaayay oo dhan uu ku soo bandhigo isagoo waliba loo tixgeliyay inuu yahay nin mucjiso oo cajiiba wuxuuna sameyn jiray kaliya inuu fiidiyowga ku edit gareeyo kadibna soo daayo dadka marka waxay yacni la yaabeen dad qaar waxaa jiro oo macquul maaha dhihi jiray waxayna yacni la yaabi jireen fiidiyowga 2017 la soo geliyo markay soo eegaan waxaa waaye fiidiyow viewskiisa aad u daciifo viewskiisa uu aad u yar yahay markii la gaaray 2020 gaarayo ilaa 1 milyan soo marka waxyaabaha ku kalifay inuu private ka qaado waxyaabahaas ka mid ahaa oo yacni boontiyada ka khaldanaa ay ka mid ahaayeen oo dadka qaar ay ku qabsadeen fiidiyowgan markii 2017 soo galiyo private uu ka qaado hal mar uu only me ka qaado public ka dhigo hore marka helay 1 milyan xogaa waxa laga rabaa inuu soo kabsado stable soo jijibiyo kadib uu gaaro soo marka fiidiyoyadii ugu darnaa ee u qarxay waxa kamid ahaayeen dhimashadii covid bride oo hadda soo sheegnay oo saadaashiisii ay si sax u sadaaliyay laakiin gadaal dambe ay ka fashilmatay maadaama laga codsaday inuu soo bandhigo xogta waana nin dhalinyaro ah oo maaragtay fikrad wanaagsan la imaaday waxaan oran karnaa hadii inuu islaam nahay ma aaminsani mana yacni rumaysani inuu qof yacni maanta uu saadaalinayo beri iyo wix dhici doono soo marka fiidiyowga waxaan jeclaysan inaan idin la wadaago xogaha daahsoon ee kaamirada gadaasheeda aad ka jeclaysan inaan idin soo gudbiyo
anigoo ah Daljir waxaan idin leeyahay dhammaantiiba caafimaad iyo taam waxaan idin rajaynayaa barwaaqo iyo reenreen sida anigu u faraxsanahay ilaa hadda haddii aadan subscribe ka saarin sidoo kalena aad like saarin muuqaalka commentina aad ka bixin share gareen waxaan kaa codsanayaa oo aan ku leeyahay si saaxiibtinimo ay ku jirto inaad muuqaalka like iigu saarto subscribe-kana aad taabato siina share gareyso muuqaalka maxaa yeelay dad badan oo jecel inay waxyaabaha la yaabka dunida ay jeclaadaan ayaa jira sometimes waxaa jira qof aanan ogeyn channelkaas waxa uu yahay iyo xogtiisa soo markii inuu ogaado ayaa jecelahay videoga like saar like waxay naga saacidaysaa inuu videoga kor si ay dad badan si arko waxaan ku rajaynayaa caafimaad iyo sidoo kale cimri dheer iyo cibaado suuban intii noo la tiijaa inoo balana let's go